Waa qaybta 26aad qisooyinka nebiyada. Waxaan qaybta hore uga soo sheekeynay qisooyinkii Nebi Suleymaan iyo Nebi Ilyaas calayhimussalaam. Haatanna waa qisadii Nebi Sakariya iyo Nebi Yaxya calayhimussalaam. Nebi Sakariya calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa nebiyadii Alla doortay, wanaaggiisana Qur-aanka Kariimka ayaana loogu sheegay. Nebi Sakariya marka uu soo galo Maryama bintu Cimraan oo ahayd gabar wanaagsan iyada oo ku cibaadaysanaysa mixraabka, wuxuu arki jiray irsaaqad badan oo dhinaceeda tuban. Qudaar aan xilligaas deegaanka laga heli jirin ayaa dhinaceeda buuxday. Marka uu weydiiyey halka ay ka keentay, waxay ku warcelin jirtay in xagga Alle ay ka yimaadeen arsaaqada, eebbena qofka uu doono u arsaaqo. Nebi Sakariya xaaskiisii wax caruura umay dhalin, sidaa awgeed wuxuu baryay Alla subxaanahu wa tacaala si uu u helo duriyad wanaagsan isaga oo da' ah. Nebi Sakariya wuxuu bilaabay inuu mixraabka ku ducaysto, Allana u weydiisto inuu khayr ku irsaaqo. War farxad leh baa yimid. Nebi Sakariya isaga oo cibaadada iyo allabariga sii wada, waxaa u timid bishaaradii. Waxaana lagu yidhi, Sakariyow, waxaan kuugu bishaaraynaynaa wiil la yidhaahda Yaxye. Farxaddii ayaa ka tambadisay. Markaas ayuu la soo booday, Rabbiyow, sideen u heli karaa wiil aniga oo da' gaaray, xaaskayguna aysan waxba dhalin? Waxaa loogu warceliyey, waa sida uu Rabbi xukumay. Arrintaasi Alle way u sahlan tahay. Adigoon jirin baa lagu abuuray laftaada. Muddo aan sidaas u sii fogeyn kadib waxaa dhashay wiilkii Yaxye ahaa. Yaxye si la yaab leh ayuu dunida ku yimid. Waxaa dhalay aabbe da' ah iyo hooyo aan wax dhalin. Kolka uu weynaado oo uu koray, kaalinna galay, wuxuu noqday qof caqli badan oo ka fikira in dadka loogu yeero cibaadada iyo adeecidda Alle subxaanahu wa tacaala iyo ka tegidda dembiyada iyo macaasida. Marka ay carruurta faciisa ah ugu yeeraan ciyaar iyo dheeldheel, wuxuu dhihi jiray, ciyaar la iima abuurin ee cibaado ayaa la inoo abuuray. Isaga oo yar ayuu kitaabka barta oo xifdiyey. Wuxuu ahaa baari u samafala waalidiintiisa, mana uusan ahayn nin isla weyn oo kibir badan. Wuxuu ku dadaali jiray cibaadada. Isaga iyo aabbihii Sakariya waxay aad u joogteyn jireen ducada har iyo habeen. Dilkii Nebi Sakariya iyo Nebi Yaxya calayhimussalaam. Nin boqor ahaa oo ka talin jiray meel ka tirsan Shaam ayaa damcay inuu guursado gabar ka mid ahayd muxaarimtiisii. Nebi Yaxya calayhi salaam ayaa u sheegay inaanay bannaanayn arrinkaasi. Boqorka iyo gabadhiiba way ka xanaaqeen hadalkii. Waxay gabadhii shardi uga dhigtay boqorka in la soo dilo Nebi Yaxya calayhi salaam haddii uu guur doonayo. Halkaas ayaana lagu dilay Nebi Yaxya calayhi salaam. Kadib boqorkii wuxuu ka baqay in Nebi Sakariya uu habaaro, isagiina waa ay dileen. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu nimankaasi ku salliday boqorkii Baabil ee la oran jiray Bukhtanasar oo dilay dad ka badan 70,000 oo iyaga ka mid ahaa. Haddaba maxaynu ka baran karnaa qisadani? 1. Eebbaweyne wax kasta waa uu awoodaa. In si ikhlaas ku jirta aan u ducaysanana waxaa lagu aqbalaa ducada. 3. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu arsaaqaa cidda uu doono. 4. Macsida iyo xumaha waxay sabab u yihiin balaayo kasta. 5. Yuhuudda waxay dileen ambiyadii Alle qaarkood. 6. Mar kasta lagama quusta xagga Alle. 7. In Rabbi lagu kalsoonaado oo si niyad ah wax loo weydiistana waa muhiim. Qaybtan halkaa ha inoo joogto. Soonka iyo acmaasha wanaagsan Allah inaga wada aqbalo. La wadaag walaalaha kale qisooyinkan si ay ugu cibro qaataan, adna aad ajar uga heshid, oo inoo sheer gareeya. Ramadaan mubaarak.